casharkan wuxuu ka hadlayaa sidii Windows 10 aan ugu duubi lahayn computer Apple saan ugu duubi lahayn. waa MacBook Pro ayaan ku duubaynaa haddii aan la idmo. marka koowaad waxaan u baahanahay file Windows 10 oo ISO file sida u jeedaan halkan. waxaan haysanaa mid ISO file ayaan haysanaa. waxaad ka soo shuban kartaa caadiyan oo aad ka soo qaadan kartaa meesha la yiraahdo online-ka ayaa geli kartaa. waa soo rogan kartaa, waxba dhib ma laha. waa soo qaadan kartaa. marka haddii aad rabto marka inaad soo shubato get into PC iyo meelahaas oo dhan baad tegi kartaa. markaad tagtidna waxaad ka soo shubanaysaa file-kii ayaad ka soo shubanaysaa. get into PC oo kale ayaa ka soo shubanaysaa. sida caadiga ahayd ayaa halkan waxaa ku qoraysaa waxa u baahan tahay. tusaale waxaan u baahanahay Windows 10 ayaan u baahanahay. Windows 10 ayaan u baahanahay. so wakaas Windows 10kii waa soo rogan kartaan. halkan u imaanaya oo cancel gareynaya kan hadda uma baahni. clear baan leeyahay downloadska. kaasi marka waxa weeye waa haddii aad soo shubanaysaan marka oo aad u baahan tihiin waa kuwaas waa soo shuban kartaan. haddii marka aad u baahan tahay inaad flash ku haysato tusaale ahaan hard diskigan oo kale aan ku haysanaa. waxaan soo gelaynaa folderka uu ku jiro aan soo gelaynaa folder ku jiro. marka folderka aynu nimaadno oo kale waa kan waan soo copy gareynaynaa. markaan soo copy gareysano command C aan soo copy gareysano waxaan yeelaynaa waxa la yiraahdo command V ayaan dhahaynaa. halkan inoo imaanaya marka halkan ayuu inoo imaanaya wakaas. marka inta aynu dhamaystirno kadib waxaynu tegaynaa oo aynu ku dhufanaynaa barta ay ku taalo daaqadeena ay ku taalo go. kadibna waxaan kasii gelinaa applications. kadibna waxaan ku qoranaa halkan mid la yiraahdo magaciisa waxaa la dhahaa bootcamp baa la dhahaa. bootcamp assistant ayaa la dhahaa waka. kadibna bootcamp assistantgaasaan double click siinaynaa. way noo soo kacayaa markaas. kadibna continue ayaan leenahay. okay ayaan leenahay. continue baan dhahaynaa. kadibna okay baan dhahaynaa markaas. haddii marka flash ay kugu jirto ama hard disk iska saar. kadibna haddaad ka saarto markaas ku shaqeynaya. halkan waxaa imaanaya marka daaqada waxaa imaanaya waa duubitaankii tusaale ahaan Mac OS-kii ama operating system-kii Apple-ka halkaasuu ku duuban yahay. computerka marka hard diskigiisa waxaa ka bannaan 49GB. so kana jiidaysaa saasa u jiidaysaa eeg waa la yareyn karaa waa la badin karaa. kanaan badinaynaa 76 qaato. kadibna waxaan leenahay directory-ga uu inoo yaalay desktop-ka ayuu ahaa. desktop baan ka dooranaynaa eega desktop. Windows 10kii waa kan marka Windows 10kii waa kanaan durkiyo. Windows 10kii waa kaas. kadibna waxaan leeyahay open. kadibna waxaan leeyahay install baan dhahayaa. marka wakaas software-kii information-kiisii weeyaan. intaa markuu dhameeyo wuxuu ku weydiinayaa inuu dib u soo kaco. marka hore password buu ku weydiinayaa kadibna installation-ka ayuu caadi u bilaabayaa. kadib halkan wuxuu ku soo saarayaa wixii la dhihi jiray Windows-ka noociisii iyo information-kiisii ayuu ku soo saarayaa. wax kale ku soo saari maayo. next ayaa iska dhahaysaa marka next ayaa iska dhahaysaa. kadibna kanna next ayaa isagana sii dhahaysaa. sida caadigeenu naqaanay weeyaan. marka installation aynu sameynayno ayuu inoo weydiinayaa. cajiladaynu ku duubayna ayaan dooranaynaa. marka haddii ay cajilado badan ku jireen waad wada masixi kartaa.
ta ugu weyn haddaad ku duubayso iyo haddaad dooranayso ta ugu yar markaas ayaad kala dooranaysaa ta aad ku duubayso. Marka hadaad ku duubayso doorato marka waad kasii soconaysaa. Hadaad ku duubaysaa dooranaysaa kadib waad kasii soconaysaa because qayb wuxuu uga tegayaa Mac OS kii ayuu uga tegayaa oo uu u dhaafayaa. Marka waa very simple, wuu iska fudud yahay marka isaga lagu duubayo. Kadib next baa iska dhahaysaa, isagaa wadaya ilaa marka dambe marka uu ku weydiiyo passwordkii iyo usernamekii iyo wixii aad gelgelinaysay ayuu ku weydiinayaa. kadib markaa intaa dhammaystirtid restart iyo waxaas u dirayaa. markuu restartkii waxaa dhameeyo kadib wuxuu ku weydiinayaa keli ah username password. markuu waxaasoo dhan dhameeyo intana uu dhameeyo aa iska dhahdid muxuu ahaa next ama skip iska dhahdid oo aad dhammaystirto waxaad samaynaysaa, waad daynaysaa, hadhow passwordkaad gelinaysaa. daaqad yar baa laga yaabaa inuu noqdo laakiin marka dambe caadi buu isaga hagaagayaa, wuu kugu shaqaynayaa. marka dambe si fiican buu kugu shaqaynayaa. waad sugaysaa marka inta uu restart ka samaynayo. wakaa marka usernamekii iyo passwordkii baan gelinaynaa. markaan usernameka iyo passwordka gelino ayaan iyo confirm passwordkii wixiiba ayaan iska dhahaynaa waxaa la yihahdaa next kadibna waan sugaynaa. kadib markuu intaa dhameeyo degdeg buu markiiba ku dhamaynayaa, isaga automatically kuu soo kacaya. driverska laftigoodii hadhow automatic buu isagu duubayaa, hadday tahay wirelesskii hadday tahay wixii kaloo dhan waa kuwaa marka daaqadaasa kuu soo baxaysa. bootcampkii kii la dhahayay eenu ku duubnay markii hore ad arkayseen. marka intaa weeye marka lagu duubayo. aad baa ugu mahadsantihiin daawashadiina. asalaamu calaykum.